Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ururka dhakhaatiirta Soomaalida Finland waxay maanta halkan idinka soo gudbinayaan macluumaad iyo wacyigelin ku saabsan fayraska corona COVID-19. Waxaan macluumaadkan iyo wacyigelintan ugu talagalnay gaar ahaan Soomaalida ee ku nool dalka Finland iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaanba. Sababtaan u sameynay macluumaadkan waxa weeyaan inay bulshadu hesho macluumaad dhammaystiran iyo sugan oo ka hadlaya fayraska corona COVID-19. 2. In lagu saxo aragtiyaha kala duwan ay bulshadu ka haysato fayraska corona COVID-19 oo aan ahayn kuwa sax ah. Waa maxay macnaha fayraska? Fayrasku waxa uu ka mid yahay jeermisyada keena caabuqyada kala duwan ee ku dhaca habdhiska bini'aadamka. Fayrasku mar walba wuxuu u baahan yahay noole kale sida xayawaanka ama bini'aadamka si uu u noolaado una tarmo. Corona COVID-19 wuxuu ka mid yahay kooxo fayras ah oo qaab dhismeedkooda genetic ahaan ay isku mid iskaga yihiin kuna keena cudurro kala duwan habdhiska neefsashada inta badan kuna dhici kara bini'aadamka iyo xayawaankaba. COVID-19 wuxuu aad ugu sii dhow yahay qaab dhismihiisa fayraska loo yaqaano SARS, laakiinse wuxuu kaga duwan yahay calaamadaha uu ku keeni karo bini'aadamka. Halkuu ka yimid fayraska corona? Asal ahaantiisii fayraska corona wuxuu ku noolaa xayawaanka inta aanu u gudbin bini'aadamka. Kiiskii ugu horeeyay ee bini'aadamka laga helay wuxuu ahaa magaalada Wuhan ee dalka China ku taala bishii 12aad 2019. Bishii 3aad 2020 WHO waxay ku dhawaaqday fayraska corona COVID-19 inuu noqday masiibo caalami ah. Sidee la isku qaadsiiyaa fayraska corona? Fayraska corona wuxuu ku faafaa marka qofka fayraska qabo dhibicda ka soo baxda qofkaasi marka uu hadlayo, qufacayo ama hindhiso ay gaadho qofka kale sankiisa, indhihiisa ama afkiisa. Amase qofka marka uu gacmihiisa ku taabto meeshaas ay dhibicdu gaadhay kadib gacmihiina uu ku sii taabto sankii, afkii iyo indhihii. Muddo intee leeg ayay ku soo baxaan astaamaha fayraska? Marka uu qofku qaado fayraska corona COVID-19 waxay calaamadihiisu ku soo baxayaan inta u dhaxaysa maalin ilaa 14 maalmood, badanaa 4 ilaa 5 maalmood gudahooda. Qofku miyuu gudbin karaa fayraska corona isaga oon astaamihiisa lahayn? Dabcan, cilmi-baadhisyadu waxay sheegeen qofku inuu sii gudbin karo fayraska isaga oon wax calaamada weli lahayn. Waa maxay calaamadaha lagu garto fayraska corona? Fayraska corona COVID-19 inta badan wuxuu saameeyaa habdhiska neefsashada sida hunguriga cad, dhuumaha hawo-mareenka iyo sanbabada. Waxaa mudan in la fahmo fayraska corona calaamado gaar ah male, laakiin wuxuu la mid yahay sida fayrasyada kale ee ku dhaca habdhiska neefsashada. Qofka fayraska corona COVID-19 uu ku dhaco calaamadaha lagu gartaa waxa weeyaan xumad sare, qufac qalalan, neefsashado qabata, shuban, daal fara badan. Fayraska corona khatartiisu intee ayay leegtahay? Cilmi-baadhisyadu waxay sheegeen fayraska corona inuu aad u faafo, laakiin 80% uu yahay nooc fudud, 20% uu yahay nooc adag, keeni karana qofka inuu u baahdo in lagu daweeyo isbitaalka iyo inuu gargaar degdega u baahdo. Cilmi-baadhisyadu waxay sii sheegayaan ilaa imika la og yahay xaddiga dhimashadiisu inay ka yar tahay 4%. Ayuu ku dhacaa fayraska corona? Wuxuu ku dhici karayaa qof walba iyo da' walba. Ayuu
xaalad caafimaad khatar ku keeni karaa fayraska corona. Wuxuu ku keeni karaa xaalad caafimaad oo khatar ah dadka da'doodu ay ka sareyso 70 jir iyo dadka la nool xanuunada kroonika ah sida sonkorta oo kale, dhiig karka, kaliya xanuunka, beer xanuunka, xanuunada ku dhaca habdhiska neefsashada iyo qofka isticmaala dawooyinka daciifiya difaaca jirka sida dawooyinka kansarka iyo wixii la mid ah. qaabkee looga hortagi karaa viruska COVID-19 saa la socono ilaa hadeer wax daawo ama talaal ma lahayo oo ma la sameynin, laakiin ka hortaga waxaa ka mid ah inuu qofka gacmaha uu dhaqo, tan kale inuusan booqanin meelaha xarumaha caafimaadka hadiisan baahi jirin, in uusan booqanin guryaha kaleeto. sidoo kale waxaa ka mid ah inuu iska ilaaliyo ama ka fogaado inuu ku salaamin gacanta, inuu dadka ku salaamin, inuu iska ilaaliyo hindista ama qufaca markuu dadka la joogo. hadduu isku arkana calaamadaha qufaca hindisada in uu gurigiisa joogo. muddo in la eg ay socon doontaa viruskan hadeer weli ma la garanayo imise socon doontaa, laakiin qiyaas ahaan 4 ilaa 6 bilood aa lagu qiyaasay in ay soconayso viruskan. daryeelka caafimaadka Finland ilaa hadeer wuu ku filan yahay inuu dadka qaabilo, laakiin muhiim waxaa waaye in oo la iska ilaaliyo in oo si aadka u fidin. oo waxyaalaha hadda la sameynayo waxaa ka mid ah ka hortagaan la sameynayo in ay dadka dhan hal mar isla qaadin viruskan maadaama uu dhaqsi uu fidayo. saas darteed oo waa inuu qofka marka waxyaalahan uu ka warqabo inuu gurigiisa joogo, meel dad badan ay joogaan inuu iska ilaaliyo. maxaad sameynaysaa marka haddii aad isku aragto calaamadaha viruskan? kow waxaa waaye dadka kula degan inaad ogeysiisid si ay kaaga fogaadaan. 2 inaad gurigaada joogtid, haddii aad isku aragtidna hergeb zaa'id u badanna in aad isticmaashid sharoobada hergebka iyo waxyaalahan vitamiinaadka oo caadiyanba ka hortaga oo difaaca oo adkeenayo. haddii aad u baahato xanuun baabi'iye waxaa isticmaali kartaa Panadol ama Burana. sidoo kale haddii aad u qandhatid waxaad la xiriiri kartaa ama kale interviews asamaga. haddii uu xiran yahayna waxaa wici kartaa telefoonka 116 117 aad weydiin kartaa macluumaad dheeri ah. haddii aad u baahatid gargaar degdeg ah ama neefta kugu ceshonto waxaad wicaysaa 112. yaa laga qaadayaa shaybaarka coronavirus. saad ula socotiin dadka dhan lagama baarayo calaamadaha. dad kastoo lagu arkay cudurkan calaamadihiisa lamaga qaadayo shaybaarka ee dad gaar ah laga qaadaya. dadka ka shaqeeyo xarumaha caafimaadka haddii lagu arko calaamadaha aan hore u soo sheegnay waa laga qaadaya. sidoo kaleeto dadka si halis u ah oo riski ku jiro haddii oo lagu arko calaamadahan waa laga qaadaya. hooyada uurka leh ma ku dhacaa coronavirus? kiisaska hadda la sheegay dumarka uurka leh aad u yar yihiin, baaritaano waa ku socdaa. saasi tahay ilaa hadeer wax oo ma la dhihin inay ku jirto riskiga. hooyada uurka leh miyaad u gudbin kartaa marka cudurkan? cudurkan ma ahan cudur ku gudbaayo dhanka galmada, laakiin maadaama qofka u dhowaad hadda u dhowdahay waa u gudbin kartaa, laakiin sida oo galma ahaan uma gudbo cudurkan. waa maxay macnaha in qofka la karantiimo? karantiinka waxaa la geliyaa qof caafimaad qaba oo la kulmay qof laga baaray inuu fayraska corona qabo. haddii qofka uu fayraska ku dhacay aad tusaale ahaan isla shaqaysiin, waxaa maalmaha karantiinkaaga laga bilaabayaa in laga tiriyo maalintii ugu dambeysay oo aad is aragteen.
karantiinkaagana wuxuu socon muddo 14 maalmood ah. qofka karantiinka ku jira haddii uu isaga calaamadaha hargabka isku arko, karantiinka wuu ka bixi oo waxaa toos loo gelini go'doon. waa maxay macnaha in qofka la go'doomiyo? waxaa loola jeedaa qofka marka fayraska laga baaray kadib in gooni loo joojiyo haddii lagu sheegay inuu qabo fayraskaasi. waxa uu go'doonku qaadan karaa muddo 7 maalmood ah oo laga bilaabayo maalintii ugu horeysay ee aad astaamaha hargabka isku aragtay. haddii 7daas maalmood kadib weli aad astaamihii hargabka isku aragtid, wuxuu go'doonku soconi ilaa iyo intaad 24 saacadood bilaa astaan ka tahay. qofka go'doonka la geliyey haddii uu ka mid yahay reerkaaga, wuxuu adiga karantiinkaagu soconayaa muddo 21 maalmood ah oo ay ka bilaabanayso maalintii ugu horeysay ee qofka fayraska ku dhacay astaamihiisa lagu arkay. gabagabayntii, sida fayraska corona covid loo xakameeyo, haddaba waxaa loo baahan yahay qof walba oo naga mid ah inuu raaco sharciga ay dowladdu soo dejisay iyo inuu qaato tallaabooyinka ka hortaga ay noo sheegeen dhakhaatiirta ama kalkaalisooyinka xirfadda u leh ee ka shaqeeya fayraska corona covid-19. rugta hay-adda caafimaadka ee xaafadaada waxaa ka shaqeeya kooxyo kalkaalisooyin iyo dhakhaatiir oo ay shaqadoodu tahay in ay ka wardoonaan dadka fayraskan koronada ay ku dhacday iyo caafimaadkooda. haddii ay kula soo xiriiraan, waxaad adigoo mahadsan dhagaysataa warbixinta ay ku hayaan. haddii aad su-aalo qabtidna ayaga weydii. haddii aad doonaysid in luuqadaada lagugu adeegana oo aad turjumaan rabtid, ayaga weydiiso maadaama aad arrintan xaq u leedahay. dhibaatooyinka bulshada Soomaaliyeed lagala kulmo waxaa ka mid ah in warbixinta hadeertan idiin sheegaynay iyo talada la siiyo aysan si dhab ah u qaadan. arrimaha aan idiin soo sheegnay waxaa weeyaan arrimo sharci ku salaysan oo u baahan in lagu dhaqmo. ugu dambeystii, cabsi badan aas ka jirto maadaama uu yahay cudur oo dhaqsi fidaayo. saasay tahay walwalka badan iyo stresska badan inuu qofka iska ilaaliyo aad muhiim u tahay. inuu la socdo macluumaadka la siiyey uu ku dhaqmana aad u muhiim tahay. dhammaan dadkii iyo cudurkan taabatana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ugu baryaynaa in uu caafiyo.